maxkamadda gobolka Sanaag ee degmada Ceergaabo ayaa xukunno kala duwan ku riday 4 eedaysane oo lagu soo qabtay gaari sidii maandooriyaha khamriga kaasi oo galbeedka magaalada Ceergaabo ay maalintii shalay ku soo qabteen ciidanka booliiska gobolka Sanaag waxaana 40 eedaysane iyo 45 dhalo oo khamriga oo ah kuwii lagu soo qabtay saaka la soo taagay maxkamadda gobolka Sanaag halkaasi oo ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka Sanaag Yaasiin Maxamuud Jaamac ku soo oogay xeerarka dambiyada loo haysto 40 eedaysane ciidanka booliiska gobolka Sanaag sagaalkii bishii 12 waxay soo qabteen khamri lagu sido gaari Laanguruus oo lambarkiisu yahay 32273 oo uu leeyahay wadayna eedaysane ninka la yahay Yuusuf Axmed Cali waxayna ku soo qabteen khamri dhan 45 dhalo oo khamri oo nooc loo yaqaan dareejiinka khamriga waxa la soo geliyay magaalada Ceergaabo waxaana doonayeen inay ka iibiyaan khamriga waxa lagu soo qabtay 4 eedaysane oo kala Yuusuf Axmed Cali oo ah wadaha gaarigana leh 2 Axmed Maxamed Xandulle 3 Rashiid Aadan Ducaale ka afraad oo ah Cabdi Cumar Cabdi garsoore Maxamuud Sheekh Xuseen Xasan ayaa goobtaasi kaga dhawaaqay xukunada 40 eedaysane iyo gaarigii maandooriyaha khamriga oo ay furihiisa la wareegtay maxkamaddu waxay maxkamad ku xukuntay eedaysanayaasha koobaad labaad saddexaad mid walba 16 bilood oo xariga iyo 3 milyan oo shilin Soomaaliland oo ganaaxa waxay eedaysanaha afraad maxkamaddu ku xukuntay 6 bilood oo xariga iyo 1 milyan oo shilin Soomaaliland oo ganaaxa waxay maxkamaddu ku xukuntay khamrigii la qabtay oo dhan 45 dhalo oo nooca dareejiinka ah in la qubo lana baabiyo waxay maxkamaddu ku xukuntay sidoo kale gaarigii lagu siday khamrigaas oo lambarkiisu yahay 23273 2 milyan oo shilin Soomaaliland oo ganaaxa qaar ka mid ah taliyaashii ciidanka booliiska gobolka Sanaag ee ku guuleystay qabashada maandooriyaha khamriga ayaa iyana halkaasi ka hadlay taariikhdu markay 9 bishii 12 waxaanu soo qabanay khamrigan aanu keenay maxkamadda oo ah 25 dhalo oo dareejiin 45 dhalo oo dareejiina iyo gaarigii siday iyo maxaabiistii oo 4 nin ducaale waxaanu ku guuleysanay inaanu qabanno 45 ka dhale maanta hortiina yaala ee dareejiinka iyo gaarigii iyo maxaabiistii waxaanu isla markiiba horkeenay eedooda iyo maragadeedii xafiiska xeeraantii maxkamadda awoodda u lahayd waxaan aad ugu booriyay ciidanka booliisku inay kiis kastoo ay gacanta la galaan ay dul joogaan ilaa halku ka dhamaanayo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa digniin u diray cid kasto isku dayda inay ka ganacsato ama iibiso maandooriyaha khamriga waxaan uga digaynaa inaan khamri la keenin iyo wax kale oo la midaba waxaanu kale iyagana aad halkan aanu ugu mahad runtii aanu leenahay warnala shaqeeyo booliska la shaqeeya oo midooba al-amr wal macruuf ونهي عن المنكر هيأدى خيرك dadka farta xumaana ka reebto booliska la soo shaqeeya midooba annana gacan baan dugsiinayna haddaad sidaal nooga baahataan iyo haddaad wax kale nooga baahataanba diyaar baanu idin leenahay inaanu gacan weyn idinku siino gabagabadiina waxa maxkamadda gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo si wada jira loogu burburiyay 45 dhalo oo maandooriyaha khamriga Cabdiraxmaan Axmed Ilsar fogaanaaraga xorta Star TV magaalada Ceergaabo